maanta taariikhdu ma xusayso nin boqor ah mana xusayso nin gabyaa ah ee waxaynu baadka ka rogi doonnaa boogga taariikhda si aynu u baranno wiil dhallinyaro ahaa oo magaalada maka oo dhan ay ku dayan jirtay xaragadiisa wiil ay gabdhaha quraysh oo dhammi ay ku hamin jireen inay guursadaan waxa uu ahaa wiilkii ugu udgoonaa ugu lebiska wanaagsanaa uguna nolosha raaxada badnaa guud ahaan jasiiradda carabta laakiin ninkani wuu isbeddelay wuxuuna noqday nin gashaandhar duugoobay maqaarkiisa wuu qalalay cagihiisiina way dilaaceen haddana marka uu dhintay rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa ilmeeyey isagoo dhahaya muscabow waxaan kugu arki jiray magaalada maka iyadoo aysan jirin qof adiga kaa nimco badan maantana timahaagii way isku wada dhegeen dharkaagiina waa go' keliya haddaba waa kuma geesigan soo dhowaada saaxiibayaal aniga waxaan ahay abshir casaawe halkanna waa casaawe meydhiya maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada muscab bin cumayr safiirkii ugu horreeyey ee islaamka iyo ninkii sababta u ahaa in madiine ay noqoto hoyga islaamka intaana muuqaalka sii gudagelin haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo sabskribe sar janalka haddii aad horey noogu xirnaydna muuqaalka leegdhe oona sii shargare si aan u fahanno qiimaha muscab waa inaan marka hore fahannaa noloshiisii hore muscab waxa uu ka dhashay qoyska reer bani cabdidaar oo ahaa qoys hodan ah oo quraysh ka tirsan hooyadiis qunaas bintu maalig waxay ahayd haweenay aad taajir u ah oo dabeecad adag oo si xaddaafana u jecel wiilkeeda muscab taariikhdu waxay noo sheegaysaa in muscab uu ahaa wiilka loogu kalkoolinta badan yahay magaalada maka waxa uu xidhan jiray kabaha ugu qaalisan ee laga keenay yaman dharkiisa waxaa laga keeni jiray shaam waxaa kaloo la sheegaa inuu marsan jiray barfuun gaar ah oo qaali ah kaasoo marka uu waddada marayo dadka ay urta ku garan jireen in muscab uu halkaa marayo saxaabada qaar waxay dhaheen ma aanan arag qof ka qurux badan kana dhar wanaagsan kana nimcad badan muscab bin cumayr xilligii jaahiliyada waxa uu ahaa xiddiga dhallinyarada quraysh golayaasha waaweyn ayaa lagaga sheekaysan jiray waana lagu faani jiray iyadoo maka ay ku jirto xilligii mugdiga ahaa oo sanamyada ay caabudi jireen waxaa bilowday hadalhayn cusub waxaana soo baxay nin la yidhaahdo maxamedul amiin oo sheeganaya inuu yahay nin alla soo diray muscab waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah oo aqli badan wuxuuna maqlay in nebiga naxariisii nabadgelyo korkiis ha ahaatee iyo asxaabtiisa ay si dhuumaalaysiya ugu kulmayaan guriga arqam binu abi arqam xiise ayaa galay habeennada ka mid ah wuu dhuuntay wuxuuna tegey gurigii markii uu guriga galay waxa uu arkay rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo akhrinaya aayado qur'aan ah qur'aankaasi waxa uu si toosa u taabtay qalbigii muscab isla goobtii ayuuna ku islaamay laakiin waxaa hor taallay caqabad weyn caqabaddaasina waxay ahayd hooyadiis muscab waxa uu ogaa in haddii hooyadii ay ogaato ay kala noqon doonto dhammaan raaxada uu haysto dhibaato badanna ay gaarsiin doonto sidaasi darteed iimaankiisii wuu qarsaday maalmo badan waxa uu ahaa mid qarsoodi ku cibaadaystaa ilaa maalin maalmaha ka mid ah uu ka arkay nin lagu magacaabo cusmaan binu dalxa cusmaan waxa uu si degdega ugu waramay hooyadii muscab markii hooyadiis ay ogaatay waxay ahayd naxdin weyn hooyadiisii aadka u jecleed markan waxay isku beddeshay cadowgiisa ugu weyn waxayna isku dayday inay garaacdo laakiin jacaylkay u qabta dartiis waxay go'aansatay inay xabsi geliso waxayna ku xirtay qol mugdi ah iyadoona u diiday cunnada iyo cabitaanka si uu uga laabto diintan cusub laakiin muscabkii shara raaxada ku noolaa maanta waxa uu helay raaxo ka weyntii hore waana raaxada iimaanka wuu dhabar adeegay ilaa markii dambe uu ka baxsaday xabsigii wuxuuna ku biiray kooxdii u hijroonaysay dhulka xabashida markii uu xabashida ka soo laabtay xaaladdiisii way isbeddeshay dharkiisii qaaliga ahaa wuu dhammaaday jirkiisii jilicsanaana wuu qalalay hooyadii markay aragtay sida uu rafaadsan yahay way ka quusatay waxayna ku tiri tag oo waxaad tahay mid aanan dhalin hantidiidana waxba kuma lihid laakiin muscab waxa uu ugu jawaabay hadal taariikhi ah wuxuuna ku yidhi hooyo waan kuu nasteexaynayaa ee qira inuusan jirin alle xaq lagu caabudo alle mooyaane markaasay dhaaratay waxayna ku dhaaratay inaysan abid diintiisa qaadan doonin halkan ayay ka bilaabanaysaa
hawshii ugu weyneed ee Muscab. Heshiiskii Caqaba ee koowaad kadib, dadkii reer Madiina waxay nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee ay ka codsadeen macallin diinta bara. Rasuulkana ma dooran Cumar, mana dooran Abubakar, ee waxa uu doortay Muscab bin Cumayr. Muscab waxa uu ahaa diblomaasi oo aqoon sare u leh Qur'aanka Kariimka ah, wuxuuna tegey magaalada Madiina, waxaana martigeliyey Ascad bin Zuraara. Maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo Muscab uu dadka wax u sheegayo, waxa u yimid Usayd bin Xudayr oo ahaa oday dhaqameed, isagoo waran sita, wuxuuna ku yidhi, maxaad dhulkan keentay? Ma waxaad rabtaa in dadka aqliga yar aad fasahaadiso? Muscab oo ahaa nin aan baqin, laguna yaqaanay xigmad, ayaa yidhi, walaal ma fadhiisatid oo ma dhegaysatid? Haddii aad raalli ku noqoto, waad qaadan, haddii kalena waan joojinayaa. Usayd wuu fadhiistay, Muscabna waxa uu bilaabay inuu Qur'aankii akhriyo. Isla markiiba wejigii Usayd wuu iftiimay, wuxuuna qaatay diinta suuban ee Islaamka. Kadibna waxaa yimid Sacad bin Mucaad, hogaamiyihii reer Aws. Isla markiiba diintii ayuu qaatay xigmadda Muscab dartiis. Maalintaasi guri kasta oo Madiina ku yaal waxaa galay iftiinka Islaamka. Wakhtiga wuu socday, hijradiina way dhacday, dagaalkii Badarna waa lagu guulaystay, waxaana la gaaray dagaalkii Uxud. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa calanka ciidanka u dhiibay Muscab bin Cumayr. Dagaalka markii uu qaraaraaday ee ciidankii muslimiinta la jabiyey, Muscab waxa uu istaagay difaac, wuxuuna ogaa in haddii calanka uu dhaco niyadda ciidanka ay jabayso. Waxa kale uu ogaa inuu u egyahay nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Sidaas darteed waxa uu go'aansaday in cadowga isaga uu soo jeediyo si nebiga loo badbaadiyo. Nin gaala oo la odhan jiray Ibnu Qami'a ayaa soo weeraray, gacanta midig ayuu ka jaray Muscab. Muscab calankii bidixda ayuu ku qabsaday, isagoo leh, wamaa Muxammadun ilaa rasuul. Gacantii bidixna waa laga jaray. Labadii cududood ayuu calankii laabta ku geliyey si uusan u dhicin. Ugu dambayntiina waran ayaa wadnaha looga dhuftay, wuuna dhacay. Geesigii Islaamka wuuna shahiiday. Markii dagaalkii uu istaagay, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu soo dhex maray shuhadada, wuxuuna dul istaagay meydka Muscab, wiilkii Maka ugu xaragada badnaa. Maanta waxa uu yeelaa ciidda dhexdeeda. Waxa uu xidhnaa go' yar oo duug ah. Saxaabada ayaa isku dayayey inay kafanaan. Marka ay madaxa u dadaan, lugaha ayaa qaawanaa. Marka ay lugaha u dadaanna, madaxa ayaa qaawanaa. Ugu dambayntiina, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu yidhi, madaxa u dada, lugahana cawska ugu astura. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa ilmeeyey, isagoo xasuusanaya nimcadii Muscab uu ku jiri jiray iyo sida uu Alla dartiis uga soo tegey. Wuxuuna ku dul akhriyey aayadda dhahaysa, mu'miniinta waxaa ku jira rag ka dhabeeyey ballankii ay Alla la galeen. Muscab waxa uu inoo dhigay cashar ah in adduunyada ay tahay mid dhammaanaysa. Wuxuu iibsaday aakhirada, wuxuuna iska iibiyey adduunyada. Muscab waxa uu ina baray in diinta loo huro wax walba, in dhallinyaronimada laga faa'iidaysto, iyo in dacwada ay u baahan tahay xigmad iyo dulqaad. taasina waxay ahayd qisadii Muscab bin Cumayr, safiirkii Islaamka. Fadlan daawade, haddii aad ka heshay qisadan quruxda badan, fikirkaaga noogu reeb qaybta kommentiga. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna, nagu soo biir oo subscribe saar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegdhe oo na sii sheergare. Sidoo kale haddii aad jeceshahay qisooyinka nebiyada, waxaan kuu diyaariyey dhammaan qisooyinka 25 nebi ee Qur'aanka lagu sheegay, waxaadna ka helaysaa channelka. Sidoo kale waxay kugu diyaarsan yihiin playlist gaar ah, halkaas ayaadna ka daawan kartaa.